السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال مeel kasta aad naga daawanaysiin galab wanaagsan ama maalin wanaagsan waqtiga idinta hayba ku soo dhawaada barnaamijkeena Danger Show aad ka daawataan telefishinka caalamiga ee Somali Channel halkan idinkaga soo deynayno ama idinkaga soo gudbinaynana waa xarunta magaalada Columbus ee gobolka Ohio. barnaamijkan oo aan idin soo diyaariyay anigoo ah Basra Maxamed. maanta waxa inoogu marti ah barnaamijka safiirka dawladda Soomaaliya oo fadhiya midowga Yurub iyo dalka Belgium waa safiir Ali Saciid Fiqi oo booqasho gaaban ku yimid magaaladeena Columbus. safiir marka hore ku soo dhawo barnaamijkeena Danger Show iyo guud ahaan magaalada Columbus oo aan filay inaynan kugu cusbeen markii ugu horeysay inaan ahayn hore u timid. marka hore bal waxaad noo sheegtaa safiir ahaan oo u fadhiya dawladda Soomaaliya maxaa howlahaaga isugu jiraan as safiir ahaan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad baad u mahadsantahay inaan maanta maaragtay fursad halkaan qaali aad isiisid oo aan kaga qayb galo Danger Show. runtii horta safiir ahaan safiir kastoo Soomaaliya meel kastoo jooga ama safiir kastoo shisheeye meel wadan kale jooga shaqadiisa dhowr shaqo u leeyahay. midna maaragtay horta waa wakiilka dawladda Soomaaliya waxaan ahay wakiilka dawladda Soomaaliya u fadhiya maaragtay مثل حق السياسة وفردية ودمدا Benelux iyo European Union marka howlaheen runtii waxa way xagga diblomaasiyadda dhisida maaragtay iyo kor u qaadista magaca ummadda Soomaaliyeed iyo qaranka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed in maaragtay heshiisyo maaragtay dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca cooperation ka maaragtay waxaan ka geysan karno inaan maaragtay aan iyada nafteeda aan meesha ka geysano waxyaabo kale aan qaban waxa kamid ah maaragtay service ayaa safaaradii waxay siisaa ummadda Soomaaliyeed oo dibadaha ku nool oo u baahan consular service oo ah u baahan maaragtay warqadaha haday u baahan hadii kale iyo dad muwaadiniin Soomaaliya oo xiran haday jiraan maaragtay inaan u tagno meelaha ay joogaan oo aan maaragtay booqano xaaladooda aan soo ogaano marka howlaha waa badan yihiin maaragtay aad iyo aad mahadsan tahay midda labaad aan jecelahay inaan ku weydiiyo waxay tahay safaaradda hadda ku taal Belgium oo safaaradda Soomaaliyeed saan la socono mar dhawaad xalga ka jirteen dhismaheedii maxaa hadda xaaladeeda ay ku sugan tahay ma howl gashay dhismaheedii ma dhameystirmay howlihii loo baahnaa ma qabataa mise waxyaabo kale horta runtii fikirka ay maaragtay Soomaalida ay ka qabaan ma aha sarta hore u dhisneed dawladii kacaanka Maxamed Siyaad Barre ayaa gaday sartaan sida taariikhda lagu sheegay maaragtay waxa la iibiyay 1970 late 70s ka ayaa la iibiyay marka gurigii 23 sano oo Soomaali burburka ay ahayd lagama shaqeyn qaxooti badan baa deganaa burbur weyn soo gaaray xagga dhismaha structure-ka marka aniga aan tagay meeshii waxa yaalay kaliya waxay ahaayeen hal xafiis oo 3 kursi dhextaalo iyo xafiis kale oo yar oo meeshii yaala guriga 4 dabaq buu ka kooban yahay 4 dabaqna runtii qolal fara badan ayaa ku yaal mid kale ugu cajiibka badneed waxay ahayd in maaragtay iyadoo Yurub waa taqaana winter ayaa ka jiro kuleelaysa ma oolin meesha marka nasiib wanaag sanadkan marka aan tagay Yurub kule qaboob badan ma ka jirin sida Mareykanka oo kale sidaas darteed waan badbaadnay marka dhismaha aad aragteen oo madaxweynaha oo xariga ka jiray ma aha dhismo cusub oo hadda loo sameeyay maaragtay wasaaradda safaaradda laakiin cusboonaysiin oo maaragtay guriga maadaama runtii structurally uu burburay in maaragtay aan hadda isku daynay in dabaqa koowaad oo safiirka xafiiskiis ah iyo maaragtay xogeynta iyo meel lagu shiro ah in maaragtay meeshas aan hagaajino iyo qol kale weyn oo hoos ku yaala isagna la qalabeeyo marka qalabeynta waxa kamid ah dhinaca maaragtay si modern ayaan u qalabeynaynaa dhinaca korontada dhinaca maaragtay dhismaha dhinaca iyo kombiyuutarada sidaas darteed maaragtay meeshii horta howl fiican baa ka socota weli ma dhamaanin waxaan rajeynaynaa in dhismihii uu dhamaado bisha May dhamaadkeeda sidaas darteed anina maaragtay fursad u yeelno markaas xafiis inuu guul howlaha ana waa qabanaa horena waa loo qaban jiray intaan aan tagin haddana waa la qabtaa laakiin howl oo hadda maaragtay maadaama Soomaaliya maanta ay u baahan tahay runtii safaaraddan gaar ahaan safaaradda Yurub ku taalay tahay howl culus inay qabato xafiiska iyo maarkino capacity meesha yaala
aad buu maaragtay u liitay marka sidaas darteed hadda waxaan rajaynaynaa inaan maaragtay meel kasii fog intaas aan geyno mas-uuliyadda keliya maaragtay safaaradda saaran ma aha mathilaada keliya waxaa jira urur kale isagana la yiraahdo maarkino African Caribbean and Pacific ACP oo safaaradaha Afrikaanka iyo Caribbeanka iyo Pacific wada jiraan oo xiriir la leh wada shaqeyn EU-da iyada shir joogta ah Soomaalina inay active ka noqoto sanadkii hore ay ku biirtay inta aan tagin waa Soomaali dawladii ugu horeeyay oo lagu abaabul lagu asaasay ahayd laakiin hadda maaragtay mar labaad sanadkii hore maaragtay ku soo noqotay Cotonou agreement-iga ka oo maarkino dhamaan doono ilaa iyo sanadka 2020 marka meelaha ugu muhiimsan oo xagga horumarinta Afrika iyo siyaasadda Afrika iyo Europe laga wadana ay tahay marka taana maaragtay howl culus ayaan ka wadnaa iyadana safiir saal la socotid waxaa jira dad Soomaaliyeed oo ku dhibaataysan dalalka Yurub sida dadka xeryaha qaxootiga ku jira oo kale oo aan sharciga wadanka ku haysan marka safiir ahaan oo dawladda Soomaaliya matalaya maxaad arintaas oo kale ka qabateen ama aad hawshaas iyada ah ku tali jirtaa inaad ka qabatid waa su'aal runtii muhiim ah loo baahan yahay aniga markaan tagay meesha dawladda Belgium-ka raali kama ahayn waraaqaha annaga aan u bixino marka waxay noqotay inaan maarkino aan wada fariisano aan meeshii maaragtay aan wada hadalno meeshii process aan isla dhigno si maaragtay iyaga naftooda aan tusin kalsooni waraaqaha ka soo baxay xafiiskan inay waraaqa maaragtay runtii sax ah annagana mas'uul weyn baan iska saarnay mas'uul weyn waan iska waagii hore waxa dhici jirtay marmarka qaarkood anoo hadda maaragtay maamulkii hore joogay waxba ka sheegayn laakiin waxaa dhici jirtay in dad aan Soomaali ahayn documentiga ay isku dhiibaan taana dhibaato ayay u keentay Soomaali fara badan oo Soomaali ah in loo diido Soomaalinimadooda marka anaga markaan tagnay waxaan heshiis baan dhaxmaray ballanqaad baan sameeyay ballanqaadii waan fulinay hadda waraaqaha anaga haddaan ka bixino oo aan u siino muwaadiniinta Soomaaliyeed qaxootiga ka ah Belgium 100% waa la ogolaadaa waxaan kaloo aniga wakiil ka ahay maaragtay wadanka Netherlands oo Soomaali far badan ay joogto ilaa iyo 35,000 in ka badan ayaa joogta marka runtii jaalidaas ilaa iyo 400 qofood ayaa maanta banaanka taagan oo qaarna ay xarig ay ku jiraan oo xiran oo la rabo in Soomaaliya loo celiyo qaarna maaragtay ay banaanka joogaan marka anaga safaarad ahaan mowqifkeena dawladda ah oo ah in maaragtay khasab ninka Soomaaliya lagu celin karin waan u sheegnay waan gaarsiin qaxootiga qaar aan la kulmay inkastoo kulligood aan la kulmay qaar aan la kulmay ama qaar hataa iyagoo xarig ku jira oo iga soo wacay airportka ku jira iga soo wacay waxaan ku niri wax alla haddii la ogol yahay wax alla waraaqa oo caddeena inaad Soomaali tahay anaga diyaaran lanahay marka runtii hadda qaar badan ayaa noo yimaado maaragtay Netherlands Holland ay ka yimaado meesha xafiiska yimaadaan anaga process baan marinaa qofkii waxaa la cadeynayaa inuu Soomaali yahay su'aalo badan baa la weydiinayaa qabiil kuma xirna qabiil lama warsado laakiin waxaa la weydiinayaa bal deegaanku ka yimid hadduu sheegi karo tuuladii ku xiran ku dhegan oo kale hadduu sheegi karo hadduu safar soo aadayo yiraahdo ay maxaa ka Jowhar haddaa ka timid xamar iyo Jowhar maxaa u dhexeeya tuulooyinka la maraay maxay yihiin ama degmooyinka la maraay maxay su'aale ceenkaas ah inaan warsano marka adiga boqolkiiba anaga 99 Soomaalida isla markii waan garanaynaa inay Soomaaliyiin Soomaali markaan leeyahay waa Soomaali ku nool Federal Republic of Somalia ethnic Somalia anaga wax ma siino mana loo ogol inaan siino markaas darteed runtii horta anaga dadaal dheer aan muujinay waana sii muujinaynaa laakiin kama dambeysay waxaad ogaataa wadan hadduu go'aan ku gaaray inuu maarkino aadan shakhsi ajnabi gurigiisu joogo asagaa go'aanka iska leh laakiin anaga albaab kasta waa u garaacaynaa waa ku dadaalaynaa inaan maarkino meeshooda inay meeshooda ay sii joogaan intii Soomaaliya nabad ka noqonayso waa tahay ساعة الوزير وحنا لا إدرى الله ساعة السفير وحنا نشكت سيدان لصقنا سنة كهذا الصدى في بليسي ودم بي وحنا قبطي كونفرنس بروسلس لوجو قبطي وهذا الواحد هذا كم إذا هيد لوجو جاري وحلي هذا نيو ديل مركن نيو ديل كاس محا كهر قلي أنت هوش يسي مريسا أرتا كنتي دولة الصوماليات
hadda jirto fursad weyn ayay hadda leedahay Soomaaliya sida hadda loo taageero weligeed looma taageerin siyaasad ahaan dhaqaalahaan weli hadda maaragtay lacagaha pledge-ka la sameeyo wax weyn oo Soomaaliya gaari male sababta waxa waaye waxaan nalagu xiray in maaragtay nidaam dhaqaale oo cad ah bangiyadeen inay si fiican u shaqeeyaan wasaaradda maaliyadda inay si fiican u shaqeeyso bangiga naftiisa central banking inuu lahaado board oo maaragtay dad hataa ajnabi ku wada jiraan si loo ogaado maaragtay lacagaha shilinka baxay meesha ku baxay loo ogaado ma fahanta marka madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya markuu yimid Xasan Sheekh markuu yimid Brussels arintaas aad buu daafacay marka runtii dadaal dheer ayaa loogu jiraa in lacagahaas maaragtay la pledge gareey in maaragtay soo gaaraan Soomaaliya shir ayaa ka dhici doona maaragtay bilaha November iyo Denmark ka dhici doona oo follow up ah shirkaas oo aan rajeynayno maaragtay in ilaa markaas dawladda ay dhameystirto nidaamkii oo public financial management oo transparent ah inay banaanka dawladaha shisheeyaha ay tusto ay tiraahdo waa kana hadda anaga diyaar baan u nahay lacagiina loo keen waxaan rajeynaynaa lacagahaas inay yimaadaan intay imaan karaan ma sheegi karno laakiin inay yimaadaan baan rajeynaynaa haddii ilaahay idmo dad badanaa waxay aaminsan yihiin ama u arkaan in EU-da ama midowga Yurub lacagaha ay bixinayaan ee dawladda Soomaaliya leeyihiin ku taageerayaan qaybta ugu weyn inay ku bixiyaan security-ga oo markaan security-ga leenahayna inay ku kobciyaan ciidamada shisheeye ee dalka jooga meeshii lagu kobcin lahaa ciidamada Soomaaliyeed oo wadanka maanta iyo bari iyo mustaqbalkaba wax tari lahaa marka arrintaas sidee u aragtaa in ay wax ka qabtaan Soomaha boonayn ciidamada Soomaalida dhisidoodii iyo wax maaragtay howlgelintooda inta lagu kobcinayo maaragtay ciidamada kale oo shisheeye wadanka horta waa maaragtay waa su'aal muhiim ah horta Yurub waxaad ogaataa Soomaaliya hadaysan Yurub waxaan leenahay Mareykanka aan leenahay Soomaaliya maanta meesha hadda taagan tahay ma taagnaan leenahay marka runtii European-ka kaalmo culus ayay Soomaaliya siiyaan markaan ka soo qabano maarkino sida hadda maaragtay wadamada Afrikaanka AMISOM ciidamada AMISOM sanadkii hore bil kasta waxa ku bixi jirtay ilaa 18 milyan oo dollar sanadkii bishii ayaa ku bixi jirtay mushaar ahaan marka hadda lacagtaas fiiris lacag aad u fara badan waqti dheerna European Union-ka ma sii wadi karaan runtii waayo ujeedada laga leeyahay waxay lacag ciidamadan Afrikaanka loo keenay ay security-ga sugaan nabadda sugaan waxay in ciidamada Soomaaliyeed maarkino la gaarsiyo heerkii casriga ahaa hubkii haystaan iyaga naftooda ay sugaan marka laakiin arintaana dawladda hadda aad ay ugu tala jirtaa madaxweynaha markuu yimid maaragtay Brussels waxyaabaha uu push gareynaya waxaa ka mid ah saraakiisha Soomaaliyeed ciidamada Soomaaliyeed tababaro dibad inay helaan si markaas maaragtay ay awood u yeeshaan maaragtay inay la wareegaan kala wareegaan AMISOM markay muddadoodu dhamaato waayo kharashka ku baxay kharash aad u badan waay marka annagiya waxaana laga rabaa in maaragtay ciidan qaran ah oo la wareegi kar meesha inaan maaragtay degdeg aan ula imaano si markaas ay noogu suura gasho in askarta shisheeyaha ee Afrikaanka oo hadda runtii dadka waa ku kala duunaan karaan maarkino fikradaha hadda inay wax howl qabtaan iyo inaysan qabanin laakiin runtii markii la fiiriyo hadda fiiriso xamar 2010kii ma la tagi karin maantana xamar waad u jeedaa waa nadaafsanta nadiif waay waa magaalo nabadeeda runtii la dhihi karo waa jirta markii laga reebo qaraxyada dhacay kadib yaryarka kadib markii laga reebo laakiin waa magaalo runtii jirta marka taasna ma hadeed waxa iska leh ciidamada shisheeyaha ee AMISOM ciidanka Soomaaliyeed runtii waa loo baahan yahay in la dhiso waa in mushaar loo helaa waa in maaragtay ciidanka la qiimeeyaa mushaar loo helaa tababar fiican loo helaa waa in iyaga naftooda la baraa muwaadinimada ay runtii haddii maanta al-shabaab ay ku guuleysatay inay maaragtay dhalinyaro Soomaaliyeed ay tiraahdo isqarxi jannada galaysa annaga dawlad ahaan waxaa muhiim noo ah inaan ku guuleysan karno in ninka Soomaaliyeed askariga laga dhaadhiciyo in qarankiisa ay waajib tahay inuu daafaco oo qabiilka ka soo tago waxaa kaloo jirta aamin darrada aan hadda ka hadalnay iyada haddaan ku noqono
waddanka waxaa la filayay dad badan aad ugu hunguri weynaayeen in hadda waqtigan maanta ah in nabadgelyadii ay kasoo roonaato sida ay ahayd daradii way kasii daraysaa sida dad badan hadda aan meelo walba aan ka arkayno internetyada iyo meediada kaleba aan ka arkayno marka maxaa waliba waxaa la gaaray hadda maalin walba waxaa la dilaa dadkii madaxda ahaa ama dadkii baarlamaanka ku jiray xataa la dilaayo marka arrintaas iyada ah inkastoo dadka dhinacyo badan ay leeyihiin way ka socotaa adiga aragtidaada safiir ahaan maxaa u malaynaysaa arrintaas sideena u malaynaysaa in lagu hagaajin karo horta runtii waddan hadduu maaragtino burbur waxaa jiro waxaa abuurmaayo ama shaksiyaad ama ururo fara badan oo ka faa'iidaysanaya burburkaas oo lacag ka sameynaya maaragta marka Soomaali taa ma ka maarno inay jiraan dad fara badan oo maanta rabin Soomaali meeshii hadda taaganta inay ka dhaqaaqo ama waddan Soomaali ha ka mid ahaadaan ama shisheeye ha ka mid ahaadaan horta waa jiraan taas ka hadal male sida kaliya runtii maanta aniga aan u arko dilkan gaarka ah joogtada markiino aan dhamaaneyn u istaago aniga waxay leedahay in shacabka Soomaaliyeed xamar ku nool inay gartaan danahooda inay gartaan maanta inay sheegaan cadow meeshu ku jiro ilaan waa la yaqaan xaafad kasto dadka degan waa la yaqaana ninka wax dilay xaafad buu ka yimid ma fahanti marka runtii horta aniga waxaan qabaa inay dadkii xamar degan ama deegaan kasto meel kasto oo rabsho ka socota dadka degan inay gartaan dantooda ay runtii kan oo dhibka wada la iska qabto aniga waxaan qabaa oo kale Soomaaliya maaragtay inay tahay wadamada ugu barwaaqaysan adduunka Soomaaliya maanta daa fiirisid xeebta ugu dheer Afrika leedahay kalluunka ugu badan ayay qabtaa maaragtay maanta Soomaaliya dawlad kasta ayaa diyaar u ah inay maalgelin ku sameyso marka marmar baan waxaan israadaa Soomaalida haddaan fiiriyo aan isdhihi karnaa waxaan nahay dad maarkino dameer malab saaran aan malabkii aqoonin runtii aniga aragtidayda waxaan qabaa in waqtigay noqonto sanadaha soo socda Soomaali meesha maanta ay taagan tahay ma taagnaanayso sababaha waxaa waa taariikhda haddaan gadaal u raacno gadaal haddaan u noqdo dagaalkii labaad adduunka markuu dhamaaday Afrika badanaaba markaasay xor noqdeen haddaad fiiriso sababaha xor u noqdeen waxaa ka mid ah iyadoo Yurub dhexdeed isdhameysay dhaqaale la-aan ku dhacday oo rafaad ah aanan maarkino markaas gudmeysiga iyada ay wada aysan sii wadi karin tan labaad waxaa abuurmay Afrika gudaheed waxaa ka abuurmay dhaqdhaqaaq oo maaragtay oo gobonmadoon ah tan saddexaad oo kaalmeysay waxay UN-ka oo markaas iyada resolution la imaado la self determination ummadda waa nin walba maaragtay gumeysiga la isku hay waa la iska dhaafa mar saddexdaas qodob oo midoobay dartood ayaa horta Afrika maarkino midnimadeeda ku heshay maanta waxaad moodaa taariikh oo ka duwan taas oo kala oo u suuragelinaysa maaragtay Afrika inay maaragtay ay noqoto China soo socda iyo India soo socdo haddaad fiirisid maarkino GDP-ga Afrikada oo sub-Saharan waa 4.5 ayuu kordhaya sanadkii waa average wadamo Afrikaan waxaa jira ilaa 12 kordhaya marka waxaad arkaysaa meesha suuqa Afrika yaalla ilaa 1 billion oo dad ah midda kalena waa Afrika waxay leedahay natural resource fara badan ma garatay waxay kaloo leedahay shacabka adduunka ugu weyn ugu dhalinyarsan oo manpower ahaan hadda Soomaaliya oo kala daa ka soo qaaday boqolkiiba maaragtay 60 Soomaalida 35 sano ka yiri marka waad arkaysaa in maaragtay manpower culus meeshu ka soo bixi karo marka Europe hadda u soo noqotid Europe maanta waxaa ka jiro GDP growth waa 0.75% marka waxaad arkaysaa meesha waxaa ka abuurmay dhaqaale xumo fara badan dad fara badan oo European ayaan shaqo haysan marka dawladaha Europe kulligood waxay xiiseynayaan meel ay lacag geliyaan oo investment ku sameeyaan hatta investment at risk ay ku sameeyaan marka laakiin anaga waxaana laga rabaa inaan maarkino dawlad ahaan aan la imaano dawlad ma ahaan markaan leeyahay dawladda dadka hadda jooga kalimashay shacbiga naftiis inuu garto in maanta Soomaaliya aysan gacanta ku jirin in mucaaridnimo aysan waxba tarayn inay muhiim tahay markuu horeyso wadanka gacanta u soo galo kadib hadii la mucaaradaha la mucaarado laakiin haddeertaan nin kasto madaxweyne ah
waa in gacan lagu siiyaa si berito meel ka fiican 2016 iyadoo xaaladda maanta la joogo ka fiican loo geyn lahay maaragtay adiga nin alla ninkii oo ambitious leh oo rabo inuu madaxweyne rabo waxaan dhihi lahaa waniyow dowladda hadda jirta hala push garay ha gaarto meel aad berito oo ka fiican aad kasii qaadi karta aday naftaada laakiin haddii la yiraahdo mid walba waxba ma dhaqaaqa qashanka lagu shubo ma soconayso wax soconayna ma wax danta Soomaaliya oo ama mid kale waxaan kuu sheegaa Soomaaliya waxaan qabaa aniga maaragtay ka shakhsi ahaan haddii 3 sano ilaa 5 sano nabad sii ahaato dadka Soomaaliyeed ee Soomaaliya ku nool oo Soomaaliya u dhashay iyo dadka dibadda ka imaanaya shaqada soo doonanaya waxaa badanaya dadka dibadda ka imaanaya shaqada soo doonanaya markaas darteed waxaa loo baahan yahay runtii baarlamaanka hadda jiro ama kan imaan doono inay shuruuciyo adag ay wadanka u dejiyaan si xuquuqda bini'aadamka ee Soomaaliga loo badbaadin lahaa markaas darteed waxaan leeyahay war Soomaaliya barwaaqo ayaa tahay wadan la xiiseenayo waxaa isku haysano labadan shilin aan isku haysano aan micnaha lahayn future-ka aan ka fiirino mustaqbalka aan ka fiirino waxa noo yaalo iyo caruurteena u yaalo iyo caruurtaysi dhasho u yaalan marka waxyaabahan micnaha lahayn oo meelaha lala ordaay in laga baxo la garto in korkeena malab uu saarayahay laga faa'iideysto taasaan qabaani horta sidaad adigana la socotid oo aan kulligeen ka wada dharagsannahay dadka Soomaaliyeed waa daaleen waxaan aad iyo aad u jeclaan lahayn inay arkaan Soomaaliya oo hagaagtay sababtoo ah waa aragtay sida qurbaha loogu dayacan yahay adiga baad joogtaa waa aragtaa marka nidaamka sida hadda ay wax ku socdaan oo ma sha Allah horta dhulkii qayb fiican oo badbaaday way jiraan waxyaabo badan oo la sameeyay way jiraan dadka qaar aan noqonayo wadankii ku noqonayo laakiin haddana waxaa jira waxyaabo badan oo ka hortaagan dadkii inay intay baxaan ee wadankii gacan ka geystaan hadda dawladda wada shaqaynta dawladda markaan usoo laabanay iyadana saddexda meelood dawladda looga baahan yahay inay ka xoogaysato baarlamaankii madaxweynihii wada shaqayntoodii iyo sida hadda sheegtay xataa EU-da ee leedahay lacagta ay siinaysa ama ballanqaadkeedii inay dib uga laabatay inta Soomaaliya taas ka cisho ballanqaadyadii hadda la hakiyay aan dhahe marka arintaas iyada ah macnaha ma u malaynaysaa wada shaqayntan hadda dawladda dhexdeeda ah waxa hore looga bartay niyad jab badan dadka uu soo maray oo looga bartay wada shaqaynta xaggeeda inay mar walba burburto marka wada shaqayntan xagga oo hadda dawladda iyo baarlamaanka iyo sida wada shaqaynayaan iyo sidoo kale ula shaqaynayaan gobolladii kale iyo soo xiritaankooda iyo isku soo dumidii Soomaalida sidee u malaynaysaa kaalintii ay hadda maanta ka geysanayso dawladda ma waxa leedahay kaalin wanaagsan ee hadda wadaan mise waxa leedahay horta shaqada meesha taala shaqo sahlan ma wadanna hadduu maraayo maarkino post transitional wadankan dagaal ka soo tagay dawladda gacanteeda waxba kuma jiro marka dawladdii waxay u baahan tahay markuu horeys confidence inay abuurto confidence markay abuurto ayay maarkino awoodeeda balaaran kartaa marka meesha waxyaabo confidence hataa abuurintiisa waxaa ku xiran tahay dadkii waa in loo ballan qaadaa maarkino future fiican mustaqbal fiican mustaqbalka fiican sida loo ballan qaadi karo waa in lacag timaada shaqo la abuura marka waxyaabo fara badan ayaa isku xiran oo Soomaali naftooda ay ku kala wareegsan yihiin ani marka waxaan qabaa horta sidaan hadda ay ku sheegay wadanka gacanteena kuma jiro gacanta ha soo galo administration maamul kastoo yimaado hadda maamulka Xasan Sheekh Aajo bari ku kala imaanay war gacan ha lagu siiyo wixii xisaabtan halal xisaabta ma dhahay guulada loo noqdo waa loo gaardiyo maaragtay waxay rabaan guulada Xasan hal dhaho ya laakiin waxaan qabaa in maaragtay asaga naftii Israa'iil si dawladda Israa'iil si shacbiga ay isku xirmaan oo dantooda gartaan waayo madax anaga mid kale ma Soomaalida aan arko ku jirto waxay tahay hal shakhsi ayay waxay ka sugayaan adduunyada inuu bedelo war hal shakhsi adduunka ku bedelaay meesha waxa waaye sida aad sheegtay dawladdii oo Xasan Sheekh madax ka yahay iyo dawladdii oo ra'iisul wasaarihi iyo wasiiradeeda leedahay maxkamadii oo iyadana awoodeeda maarkiina la madax banaaniyo iyada nafteeda shuruucda wadanka ay wax ka sugto oo muhiim ah baarlamaankii howshiis qabto marka saddexdan shay wada shaqeyn u baahan kasoo shacbiga hadaan kaalmo laga helin taageero laga helin meeshii wax ma soconaay mid kale waxaan ku sheegaa wax dad fara badan ayaa dan ugu jirta Soomaaliya leeyahay ha haadan shisheey ha haadan Soomaali marka Soomaalida waxaan leeyahay war danta runtii idin ku jirto waxay tahay in future idin kaga fiican yahay wax hadda aad maarkiin oo ku dagaalamaysan
marka mustaqbalka aan maarkino aan riixno Soomaaliya si meel fiican u gaari lahayd aad iyo aad marka adiga muwaadin Soomaali ahaan iyo safiir ahaan intaba sidoo aragtaa xiriirka hadda gobolada iyo Soomaaliya ka dhaxay waa sheegtay oo dawladda waxay u baahan tahay inay dadkeedii kalsooni ka hesho inay dadkeedii support ka hesho marka sidii hadda wax u socdaan ma u malaynaysaa hadda inay kasban karto goboladii kale iyo in la isu keeni karo iyo sidee ugu wanaagsan aragtidaada aad u malaynaysaa in lagu heli karo goboladii kale iyo dawladdii inay wada shaqeeyaan horta waxaad fiirisaa 97% Soomaali 97 ka badan Soomaali dad nabad raba inay yihiin 3% oo ay kamid yihiin odayaashan dhaqanka ayaa horta Soomaali dhibaato ku hayso iyo qaar raba inay awoodda wadanka gacanta faraha la galaan ayaa horta dhibaato ku haya marka shacbiga naftiisa waa inuu kartaa arintaas runtii gobolada hadda maaragtay Puntland iyo Soomaaliya xiriir fiican ka dhaxay gobolka Puntland iyo Soomaaliya xiriir fiican ka dhaxay Puntland nin aqoon-yahan oo weli professor Abdulweli ayaa madax ka ah isagii dawladdii oo maaragtay Xasan Sheekh xiriir fiican baa ka dhaxay waxaan rajaynaynaa xiriirkaas inuu sii xoogeysto waayo Soomaaliya meel loo kala saar male gobolada hadda kuwaan la yiraahdo emerging states kuwa hadda soo baxay waa ujeedaa waxaa socdo maaragtay 6 gobol versus 3 gobol versus 2 gobol wixii maaragtay marka arinta iyada ah waxaa muhiim ah runtii shacbiga inay wada hadlaan ay isla gartaan wax hadan waayo haddii nin wal meeshiis istaago yiraahdo intaan u baahanahay inta wixii ma la isla dhaqaajinayo shacbiga Soomaaliyeed ayaa ku dhibaataysan ya maaragtay beeyadii Soomaaliyeed ayaa ku dhibaataysan xoolihii Soomaaliyeed ayaa ku dhibaataysan meel nabad jirin meel oo maaragtay horumar dhaqaale imaan karba asaas darteed ani waxaan qabaa in muhiim ay tahay baarlamaankii horta markuu horeysuu liimaado shuruucdii loogu talagalay oo constitution ku qoran in maaragtay la kala cadeeyo waxaan sidii loo kala wadaay maaragtay federalkana runtii oo hadda Soomaaliya ay wado oo runtii federal system waa wuxuu ka jiri karaa wadamo oo maaragtay oo dhaqaalahooda adag aqoon-yahaniintooduna ay badan tahay sida wadanka Mareykanka sida Germany oo kale Soomaaliya waa ujeedaa wadan oo iska maaragtay isaga dhanba rafaadsan uu yahay xaaladda hadda uu ku jiro maaragtay oo sida iyo federalka Soomaalida ay rabto waa federal oo qabiili ah oo Soomaali qeybo qabiil in loo kala gooyay taana runtii dad badan waa igu diidi karaan laakiin danta guud ee Soomaaliya long term ma aha marka waxaan qabaa aniga laakiin waxaan qabaa wax kasto ay Soomaaliya ku heshiiso oo si nabad ay ugu heshiiso ya in ay loo ogolaado wax kasto ay ku heshiiyaan Soomaaliya iskale ninka Soomaaliya waxaan aaminsanahay inuu meeshu rabo dego haas uu rabo ganacsigu rabo galo laakiin dadka deriska markaas uu leeyahay inay ka badbaadaan marka sidaas darteed ani waxaan qabaa in runtii nidaamkan federaaliga oo aan adag yahay hadduu ku adag Soomaaliya Soomaalina waxaad ogaataa waa wadanka kaliya adduunyada asagoon maarkin oo nabad jirin doortay inuu federaal lahaado federaalku wuxuu ku fiican yahay iyadoo nabad jirto dawladdii ay control karto awoodeeda meelo isqabsadaan hadda haddii magaalada Kismaayo la isku qabsado dastuuri maxkamad dastuuri oo dhisan kala saari karta male marka sidaas darteed waa mucjizo maaragtay oo aan dhamaanayno wadankii dhaxgalay laakiin waxaan rajaynaynaa caqli Soomaaliya dad caqli badan waa dad maaragtay runtii muslimiin wada ah dad runtii wada dhashay dhinacii loo fiiri waxa kaliya maaragtay ay ku kala dagaalsan yihiin waxay tahay aniga waxaan qabaa in yaa maaragtay awooddaas dhaqaalaha xukumaha iyo ayaa awooddaas dhaqaalaha xukumaha laakiin danta guud waxaan qabaa danta guud ee shacbiga in loo soo jeesto maxaa dan u ah wadanka maxaa dan u ah shacbiga sidaas darteed wax kastoo dhib jira waa laga bixi karaa صح هذه هذا ما صنطاي
arrinta kale oo aan rabo inaan kaa waraysto waxay tahay saa la socotidba xaaladda Kenya oo hadda kacsan oo dadkii masaakiinta ahaa iyo kuwii hore u degnaa hadda yihiin iyo kuwii qaxootinimada ugu tagay intaba la dhibaataynayo oo dawladda Kenya ay hadda bilowday inay dadkii dib u soo celiso xataa ay ku jiraan kuwa sharci leh ay ku jiraan sida la sheegay oo meediyada caalamka ay soo report gareysay marka arrimahaas hadda dhacaya oo xiriirkii dawladnimo oo ka dhaxeeyay labada dal wax xumeyn karaan ay tahay sidee u aragtidaada horta anaga waa u baahanahay xiriirka Kenya iyo Soomaaliya inuu wanaagsanaado dan Soomaaliya ku jirto dan Kenya ayaa ku jirto waa muhiim wadamada dariska sida Ethiopia oo kale sida Soomaaliya iyo Kenya oo kale inaan xiriir fiican naga dhaxeeyo waxa Kenya hadda ka socdo waa nasiib daro taasoo dhan laakiin waxa keentay waxa Soomaalida ayaa ugu wacan waayo qof kasta beeshu isdhiga ayaa lagu qalaya anaga Soomaali inta iska qeybinay ayaan reer isu qeybinay ayaan laf isu qeybinay ayaan maaragtay family isu qeybinay marka daciifnimadaas meeshas markay gaarto wixii la wada ugu sameeyaa runtii aniga waxaan ka soo horjeedaa nidaam xumada iyo sharaf darrada ummadda Soomaaliyeed loola dhaqmay laakiin in ummadda Soomaaliyeed wadankooda lagu celiyo anigu dib iguma hayso waayo wadanka ay iska leeyihiin wadankaas waa dhaqaalaha ay hayaan meeshas inay geliyaan wiligay waa ka soo horjeeday in dhaqaale wadan shisheeye la geliyo gaar ahaan wadamada dariska bafaan masaas darteed runtii waayo shuruuc oo hadda oo taalo bari sharci ku daafacayo oo maaragtay hantidaada aad kala soo bixi karto taama wixii la rabaa lagu sameeyaa runtii arintaas Soomaalida dibka lagu haayo oo la leeyahay hadana kaaga daran magac loo bixiyay la leeyahay argagixiso waa aan la dagaalamayna horta aad iyo aad baan maarkiin oo wax xumaay Soomaalida dibka ka soo gaartay waxaan leeyahay maaragtay kulligeena dibkaas waa soo gaaray laakiin inay Soomaalida Soomaaliya lagu celiyo waa aniga waxaan arkaa wax faa'iido badan waayo wadankeena inaan jeclaano wadankeena inaan maarkiino aan tagno haddaan anaga gari wayna in la lagu qasbay tahay laakiin foolxumada naloo geynaa iyo sida foolxumada nolol dhaqmay ayaan ka soo horjeedaa waayahay laakiin soo wadankii in la sii dadkan qaxooti tiro badan waayo oo ku laabanayo wadankii soo marka looma baahna dawladii inay meel u sii diyaariso dadkii nidaam ila la iskama soo dadgureeyo dadkii waxa loo sii sameeyay system ay ku noqon karaan iyo meel ay harsan karaan oo loo sii diyaariyo inay ku noqdaan marka hadii la yiraahdo dadkii laakiin hala soo celiyo dawladda ruuxadeeda meel miyay u haysaa nidaam ay ugu talagashay iyo waxay ugu talagashay miyaa jira iyo qorshe noocaas ah teeda kale dawladda Kenya xaq uma laha inay waxyaabo waxaan maaragtay ay sameysay sidaan hadda sheegnay laakiin dawladda Soomaaliya ruuxadeeda mowqif cad oo kiyaar ah inay ka istaagto dawladdii matalaysay dadka maadaama ay tahay aniga waxaan qabaa dawladda Soomaaliya mowqif cad inay ka istaagtay inay maarkiin madaxweynaha u hadlay gudoomiyaha baarlamaanka u hadlay prime ministerka u hadlay intaas saddexda qofood ugu waaweyn maaragtay qaranka Soomaaliyeed way hadleen mowqifkoodna way sheegeen tan ku saabsan maaragtay qaxootiga la celinayo maxaa loo qaban karaa war haddii dawladda awood lahaan leed waxbay u qaban lahayd weligeeda wax u qaban jirtay laakiin hadda haddii awood lahayn nin walba reerkiisu ay hadda galo waayo midba dhibaato oo maarkiin oo wadan shisheeye lagu hayo waxa lagu qaatay adoo dhibaato wadankaaga u gashay tan xigto dadkan markay aadeen Kenya iyagoon waxba haysanay meesha aadeen ilaaha ku irsaaqay haddana ilaaha ku irsaaqay irsaaq beeshiisa ka helaya wadankooda ha u noqdaan shilinkay haystaan ama dibadda ka heli jireen wadankooda galiyaan nabad iyo shaqay abuurayaan waayo hadda Kenya fiiri haddaad fiirisid Soomaalida iyaga faa'iido ku qabo marka Soomaaliya inay ka soo tagaan aniga waxaan qabaa Soomaaliya faa'iido tahay waayo in adii dhaqaalihii wadankana wax ka dhistid aadan maarkiino xuquuqna ku yeelan waa laga fiican yahay markaas darteed haddaan ba maarkiino xuquuq iyo naloo ogoleen shilinkeen waa inaan wadankeena geena waraad arrintan haddaan ka leexdo aan ka wareyso sida kale marka waxyaabaha hadda intaad xilkan aad haysay kugu adkaaday oo aragtay oo qurbaha siiba wadamada aad joogtay dad badan oo qaxooti ah jooga marka waxyaabi kugu adkaayo ku soo mar maxaa kamid ah horta waxa ugu adag oo maarkiino mas'uul hadii laga dhigo ugu adag in dadka Soomaaliyeed oo ku imaanay sida aad u kala bixi leedan ayaa ugu adag horta waayo Soomaalida nidaam lama soo barin
mana rabaan nidaam marka adi nidaam markaa la imaatid waa isqabanaysaan marka waxyaabaha igu adag runtii noloshayda intaan noolaa inta mar aan maya dhahay ereyga maya aan idhi iyo 8 bilood oo aan maya dhahay 8 bilood ayaa badan maya waayo waxaan rabnaa nidaam dawli ah inaan keeno ya aan wixii ay noqdaan maarkino wax nidaam loo raacayo wixii aysan ku xirneen wax aniga go'aan ka gaaray ee meesha nidaam lahaato marka nidaam u sameystii ayaa qaar fara badan oo soo badanaa 97% Soomaaliyeed dad sharci jecel waay dad nidaam jecel dad runtii oo qarannimadooda iyo umadnimadooda jecel laakiin qaar baa jiro aanan waxba ka maqlayn marka la dilgareentooda ayaa igu adkeyd maarkino oo runtii berihii hore aad ii dhibtay maarkino igu adkeyd okay arrintan ku saabsan hadda dhibaatadan hadda jirta kala daadsanaanta Soomaalida dadka qurba joogta ah adigina aad ka mid tahay maxaad u malaynaysaa inay gacan ka geysan karaan arrimaha hadda ka dhacaya dalkii haddii tahay iyo guud ahaan isu keenitaanka maaragtay iyo wax ka gacan ka geysashada dalkii iyo dibaddiba horta qurba joogta oo anigaan ka mid ahaan jiray xaqiiqda waddanka socda waxba kala ma socda waxaad moodaa qaar fara badan oo qurba joogta in nabadda ay dhibayso wax kastoo fiican oo waddanka ka dhacay inay dhibayaan maanta oo dhan waxay isugu imaanayaan meelo sida Starbucks-iga ama meelo kale isugu imaanayaan website aan maarkino reliable ahayn hataa la aamini karin oo dad mas'uul ah wariyaal mas'uul ah aanan qorin waxay soo qoranaa maanta dhan laga dooda mar Soomaalidu waxaad moodaa guud dadka dibadda jooga waxaa laga control nasiib darro waxaa laga controlaa dhalinyaro yar oo website samaysatay oo waxay rabaan isaga qoro oo aan hadda maaragtay wax moral celinaya aan jirin iyo ethics aan celinaya aan jirin waxay rabaan isaga qorinaya ayaa horta Soomaalida ay ku mashquushaa waxaasay jecel yihiin marka aniga waxaan qabaa runtii diasporaha potential fara badan ayuu leeyahay aqoon markii la dhaho dhaqaale markii la dhaho waayo aragnimo markii la dhaho laakiin intoodii haddii si oo negative loo isticmaalo dhibkeeday leedahay marka waxaad moodaa Soomaalida Soomaaliya ku nool iyo Soomaalida diaspora ku nool inay radical yihiin markay timaado Soomaali siyaasadeed iyo waxa Soomaali ka socda marka waxaan oran lahay war meeshii horta nin qof la yiri adi umrigaaga wiligaa ma dhimanaysa ma jiro nin walba waqti buu ku dhimanayaa marka waxaa noo roon qarankeen anagoo nool inaan qaran neelnahay meesha aan intaan dhiman qaran oo maarkino aan ku faani karno inaan samaysano intaan maarkino hebel ma rabno heblaay ma rabno waqtiga isaga lumin waxaa muhiim ah inaan focus ka saarno war waddankaas 9 biloodana lagu dhalay ya dad naga aqli badan waa yar yahay dad naga waay aragsan dhibaato soo maray sidii Soomaali dhibaato soo martay dad naga waay aragsan waa yar marka waay aragnimadii hadaan laga faa'iideyn war haddii shalay wixii soo martay maanta aad ku noqonaysid ma ka faa'iidin taariikhda marka waxaan leeyahay dhibkii soo marnay oo aad u fara badan inaan ka faa'iidno okay Soomaali dhibaato ka jirto waxaa ka jiro dulmi fara badan ka jiro laakiin dulmigaas ma digaayo ilaa nabad ka imaado had xuquuqda ka maqan ma arkaysid ilaa nabad ka timaado oo meeshii sharci iyo nidaami kala dambeynayma marka hala siiyo waqti sidii shuruucdii iyo nidaamkii kala dambeyntii loo soo celinayo si maaragtay dulmiga taagan loogu maarkino hortago haddaad tiraahdo ani dulmigaasaan diidanahay aad inta ka dagaalamaysid dulmigaasaa gacan siinaysa ku dulmigaas wada ayaa gacan siinaysaa markii waa u dheereynaysaa umrigooda dheereynaysaa laakiin markaad nabad chance siisid nimankaas oo dulmiga wado waqtigooda ayaa soo yareynaysa beri xuquuqdaada markii waxaa imaanaya in maaragtay xuquuqdaada aad u doodi kartid nabad markay timaado marsaas darteed waxaan dhihi lahay shacbiga diaspora ku nool oo anigaan ka mid ahaan jiray inay focuska weyn ay saaraan sidii waddankooda ay u badbaadin lahayn
aad iyo aad waa mahadsan tahay maxaa qorshayaasha hadda ku degan ee tahay marka hadda laabatid oo kale oo safaaradaada iyo howlahaaga aad dib ugu laabatid qorshayaasha ugu horeeya oo ku qorshaysan inaad wax ka qabatid maxaa kamid ah haddaad nala qaybsatid bal wallahi ani hadda waxyaabaha igu weyn runtii aniga aan arko aan ka geysan karo maaragtay siyaasadda Soomaaliya in markuu ugu horeysa magaca Soomaaliyeed aan dhiso waa iga go'an tahay in magaca Soomaaliyeed aan dhiso in markino si edban aqli ku dhisan aqoon ku dhisan magaca Soomaaliyeed loo soo celiyo number 2 in maaragtay fikirka Soomaaliya laga haysto hadda inaan bedelno numberka saddexaad oo aan doonaa in Soomaaliya aan markino aan ka dhaadhicino shisheeyaha oo ama European Unionka ama shirkadahooda aan ka dhaadhicino in Soomaaliya ay tahay wadan mustaqbal leh ay muhiim tahay inay ka fikiraan si ay maalgashan lahayn in dawladda Soomaaliyeed nafteed baarlamaanka Soomaaliya si degdeg ah shuruucda investmentiga ay u ansixiyaan si markaas shirkadaha imaanaya ay u ogaadaan xuquuqdooda waxay tahay waxaa tartan maanta jira oo Afrika ay ku tartamaysa wadan kasta oo degan oo Afrika ku tartamaya kaali investment wadankeena ku sameeyo anagana waa inaan markino tartankaas aan ka qayb galno mar haddii shaqo la abuuri karo shaqooyin ay abuurmaan dagaaladan waa istaagaya nabada imaanaysa sidaas darteed waxaa focuska ani hadda igu weyn u yahay in maaragtay saddexdaas qodob aan kusoo sheegay runtii aan ku dadaalo runtii markii lagu geeyay booskayga oo kale aad aragtid aad wadan baan mathilaaya leedahay markaad fariisatid sida wadanka qiimo darrada looga hadlaayo waa ku dhibaysaa wax alla wixii haddaad damiir leedahay wax alla wixii oo qurunka kaa buuxi waa kaa tagaaya sababta waxaa waaye 9 bilood baa lagugu dhalay sidaan kuu sheegay in wax fahmaay baa tahay ummadaadii in hortaada lagu baabi'iyay qaranka haddii lagu yiraahdo war Soomaalidan weligood miishinays waa dhibaysaa aaday dhibaysaa waayo xaaladda annaga aan ku jirno haddii ay ku jir lahayn waa naga sii dari lahayn laakiin hadda nin walba wuxuu dhahaa 23 sano waa heshin lahayd maanta dhan waa dagaalaysaa way dhibaysaa waxay dhibaysaa waxa waaye maaragtay anoo og inaysan run ahayn anoo og meelo badan ay dabka ay ka socdaan laakiin haddana waa dhibaysaa waayo anaga Soomaali ahaan weli intaan meel wada fariisin maxaa danno ama dhihin nin walbo haddaad maanta 20 Soomaali inta keentay mid walba fikrad gooni oo Soomaali u haysta was ani marka waxaan haystaa Soomaali ay wax dan u ah nin kastoo shakhsi ah Soomaali ah oo dhalasho Soomaali leh wax dan u ah inay meesha ka soo baxaan wiil Soomaaliyeed oo ku nool bari iyo wiil Soomaaliyeed oo ku nool Kismaayo ama Jilib ku nool intuu gaajaysan yahay Soomaali ma hormaraysa intuu jaahil yahay Soomaali ma hormaraysa marka anaga waa inaan maarkino ka tagnaa fikirkan oo maaragtay qabiiliga ah oo runtii aan meel la geenayn waayo qabiil iyo qaran meel ma wada marayaan waa aragnay qabiilka naftiis markaad fiirisid dhaxdooda hadaad tiraahdo war wasiir kusoo heshiya iyagoo islameeyay ku imaanaya marka qabiilkii waxaa loo isticmaalaa in dana gaar ah lagu gaaro markaas darteed ani waxaan dhihi lahay in soo shakhsi ahaan ani waxaa ila haboon aan dhihi lahay waxaa ila haboon in mataqaana mas-uuliyadda isaaran waxaan ka dhaqaajin karo dhinacaas oo Soomaali faa'iido ah inaan waqti ku dhumiyo inaanan ku dhuminin waxyaabaha Soomaalida ay isku haystaan oo markino darbiyada iyo meelahaas ay isku haystaan oo isku jijiidaan inaan qiimaha leen inaan waqti ku dhumiyo waa inaan waqti ku dhumiyaa maxaa dan u ah Soomaaliya sidee baa Soomaali maanta intaan aniga meesha joogo maxaan talaabo ka geysan karaa berito markaan ka soo tago ninkii yimaado meel kale iyadoo meeshii ay sii hagaagsan tahay oo meel kale sii gaarsan karo
هذه أبدا ما صنتها سؤال ugu dambaysa aan rabo inaan kusoo qatimo barnaamijkana waxay tahay maadaama aad booqasho gaaban noogu timid magaaladeena Columbus gobolka Ohio ku daawanayaan dad badan telefishinka caalamiga Somali channel-na ka daawanayaan maxaa dadka kula dardaarmi lahayd fursadan qaaliga anagoo ka faa'iideysanayna wallahi ani horta waxaan dhihi lahaa haddaan dardaarmi karo Soomaali dad la dardaarmi karo marka qaarkood ma bilaha ninka aniga waxaan dhihi lahaa danteena aan garano danteena waxay ku jirtaa wadankaas oo nabad noqda danteena waxay ku jirtaa anagoo maaragtay ku mashquulno waxaan ku midaysanahay waxaan ku kala qaybsanahay aan maarkin oo iska hilmaan danteena waxay ku jirtaa in qarannimada iyo dadnimada Soomaaliya la soo celiyo maanta markaad Europe tagtid waxyaabaha aan ku faano waxaa kamid ah guriyaha oo maarkin oo dawladii kacaanka Maxamed Siyaad Barre ay dhistay sarta hadda aan deganahay oo maaragtay aan hadda dhisay safaaradda dawladda Soomaaliya dhistay dawladda Soomaaliya ay dhisay Maxamed Siyaad Barre sharaf weyn bay ii tahay maanta maaragtay inaan sar dheer oo qiimo leh habur bursanaata deerto oo jid qiimo leh ku taalo in Soomaaliya ay degantahay calankeedu ka suraya marsaas darteed waxaan leeyahay war waxaan isku haysan wax weyn ma Soomaalina u fiirso iyagoo isdagaalay la arkaysa maayna meel ay ku heshiyeen ma ogaanaysid adiga marka waxaan dhihi lahaa waqtigaaga ha iska dhuminin adduunku waxa ugu xun adoo dhinto oo wadanna lahayn waxa haboon in wadankaas oo aan u dhalin xudunteed ku duugan tahay ee maarkiro lacagtiis waxna loogu soo baray inaan badbaadin ما شاء الله si wanaagsan aad iyo aad u mahadsan tahay waqtigaaga qaaliga aad nasisay aad nooga faa'iideysay inaan waraysigan kula yeelano waxaan intaas ku soo koobaynaa barnaamijkeennii aad ka daawanayseen telefishinka caalamiga Somali channel waxa oo maanta martidu noogu ahaa barnaamijka Danger Show safiirka Soomaaliya ama dawladda Soomaaliya u fadhiya midowga Yurub iyo dalalka ama dalka Belgium Dr. Ali Saciid Faqi barnaamijkan intaas uu ku egyahay waxaan idin sheegaynaa in asagoo maqala aad ka dhageysan kartaan raadiyaha Danger codka bulshada gobolka Ohio safiirkii annagaba waxaan idin leenahay iyo farsamayaqaanka intaba sida iyo is arag dambe xiiso leh. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.